السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان هويوينك igu cusub hooyooyinka awal ila joogay dhamaantiin soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub Ramadaan mubaarak. dhamaantiin waxaan rajeynayaa in caafimaad qabtaan. maanta insha Allah waxaan rabaa dhowr waxyaabood in aan sheego oo aadni anfici doono caruurtiina aad u anfici doono. ugu horeynta daa igu cusub tahay subscribe halmaamin, subscribe ii saar channelka ii like gareey, awlada ila joogtana like ta dhac igu sii una share gareey in alla inta garanaysid oo hooyo ah oo u baahan muuqaaladan hadda jeer aan soo geliyo waa muuqaalo aan isleeyahay ama video hooyooyinka wax badan ay ka faa'iidi karaan. saali ajligeeda ayaa mar walba iskugu taxalujiyaa inaan soo gudbiyo waxyaabaha caruurta Soomaaliyeed aad u anfici karo. maantay furoodiyo oo cabitaan camal loo sameynayo aan rabaa inaan ila wadaago aad u weyn anfici doono. waxaan u jeedaan waa hal xabo oo karoota ah, waad soo hooleysaa, waad soo dhaqay, waad soo jarjaray, digsi ayaa dabka saaree, waxa ku shubaneedaa hal bakeeri oo biyo ah ama bakeeri haafkiisa oo biyo ah. dab badan hadii aad ku shidaysid hal bakeeri uga dhigo, dabka aad ugu gaabinaysidna bakeeri haafkiisa uga dhigo. markuu ku bislaado fargeetada ayaa ku baraabeynay ama qaadada. markay ku bislaato karootadii balendarka ayaad soo qaadaneedaa, waad ku shubeedaa biyaheedii ama qoyaankii dhacaankii la socday iyo karootadii oo iswato. kabacdi waxaa ku darsaneedaa sokor ama malab. ilmaha hal sano haday ka weyn yihiin, laakiin haday sanadka yar yihiin oo 6 bilood 8 bilood 7 bilood meelahaas ay u dhaxeeyaan wax sokor ah iyo wax malab ah uga darin. sidaan naturalka ah ku sii uu la qabsanayaa carabkiisa cunuga wixii ay bartid babyga ma garatay. sidaan ayaa ku shiiday, sidaan markaa ku shiidid wuxuu ku soo baxayaa maasha Allah tabaaraka raxmaan. wax aad u qurux badan ayaa soo bixi doono, indhihiina waad ku arki doontaan biidnillaahil kariim. hooyo kasto waxaan rajeynayaa inay ka faa'iido videogan maadaama uu yahay video waxtar badan u leh hooyooyinka qaasatan caruurta ay haystaan. karootada had iyo jeer caruurta aad bay u kordhisaa miisaankooda, araga indhaha aad bay ugu fiican tahay. waxyaabo badan oo waxa ku jiro fitamiino ah caruurta jirkooda u baahan. waxay ku noqonaysaa furuud casiir camal ah laakiin adag. qaada ayaa ku ridanaysaa, halkaas ayaa ku siisaneedaa babygaaga. marka aad siinaysidna waa markii cuntada aad siidid kabacdi, ma fahamtay? ama inta u dhaxeyso quraacda iyo qadada ama galabkii casriga ooga dhig. dhowr furuud waaye qaabkan camal loo sameynayo aan soo xushay aan isiraada hooyooyinka kuwan ayaa ku haboon haysto caruurta yaryar iyo caruurta waaweyn. intaba caruurta waaweyn waxa uga dhigi kartaa casiir caadi ah, laakiin caruurta yaryar oo u dhaxeeyo 6 bilood ilaa sanad sidaan ay anficeyso. xitaa raashin waxa laga yaabaa booskiisa inay u galaan, waayo waa cabitaan adag ama furuud adag oo sida cabitaan camal loo sameeyay, laakiin tasti wanaagsan leh, dhadhan wanaagsan leh, ilmahaaga caafimaadkooda aad u kordhinayo, heer saran kaaga dhigayo, wax badan oo fitamiino ahna ku siyaadinayo. waxaan guda galeynaa videogi labaad. kani waa batroodka waxyaabo badan oo waxa ku jiro dhiiga caruurta aad u soo celinayo. qof kasta oo nool bini aadan aad ugu fiican yahay, laakiin anaga caruurta yaryar ayu maantay jadwalkeenu yahay ama videogan uu quseeyaa. waxaad sameynaydaa marka xabad batrooda soo qaade, waad soo fiiqeedaa. markaad fiiqdid waad jarjareedaa, si yaryar ayaad u jarjaree. marka horeetana waad dhaqaysaa inta aad jarjarin. kabacdi markaad soo jarjartid digsi ayaa dabka saaranaya, hal bakeeri oo biyaha ku shubanaysaa. dabka meesha ugu hooseedo u gee, xooga uu adag yahay. marka u geesid oo ku jilco ayaa waxa ku sameynaynaa sidii aan soo marnay camal. waa la shiidayaa biyahana aad inuu kaaga dhameysto wanaagsano, hadii kala dhooti adeeg ayuu ka noqonayaa. dhacaan asagoo leh ama qoyaan leh ayaa waxa loo baahan yahay in lagu shiido. batroodka waxa ku jiro fitamiino aad u badan, caruurtaada caafimaadkooda kor u qaadayo. hooyo kasta oo isbitaal u taagneed caafimaad darada caruurteeda wax badan ka caawi doono. batroodka fitamiinaadkiisa aad u balaaran yihiin. hooyo kastana waxaan kula talinayaa qaasatan hooyooyinka haysto dhallaanka yaryar inay
inay aad u isticmaalaan gurigooda laga waayin waayo fitamiino badan ku jiro caruurta borotiin uu siiyaa dhiigooda kor u qaadaa wuxuu siiyaayo kaleeto firfircooni dhameystiran dhiiga oo caruurta aad buu usoo celiyaa waliba si degdeg ah dhiiga caruurta soo celiyaa maasha Allah tabaaraka raxmaan wax lagu qiyaas lama yaqaano waa geed mucjiso ah aad caruurta u anfacayo isku day marka hooyo hadaa tahay in aad caruurtaada u sameedid aad xitaa naftaada waa u isticmaali kartaa laakiin anaga maanta diirada waxaa noo saaran caruurta yaryar maadaama ay yihiin waa kuwa ugu haboon in loo dadaalo saali ajligeeda hooyo kasto waxaa la gudboon inay u dadaasho ubadkeeda ay u sameedo waxyaabaha ka qayb qaadan karo koriimadooda oo dhameystiran isku day marka fruutkan ama beetrootkan ina aad ugu dadaashid caruurtaada waxyaabo badan ayaa loo isticmaalaa ama qaabab badan ayaa loo isticmaalaa halka markay ku mareyso aad soo shiidid waxa ku shubanayda weelka ugu tala gashay ina babyga ku siidid ka bacdi sidaas u siisaneeda waana cunto dhameystiran waa fruit dhameystiran boos walba ayuu gelayaa laakiin waxa aad u fiican ilmaha ayagoo gaajoon in aad loo siiyo ma fahamteen waqtiyada kale aad siisan kartaan waxa kamid ah casirkii oo kale kadib waqtiga casiriyada asiilaheed booskiis waa u geli kartaa iyo inta barqadi ay tahay aad sii kartaa waxa kaleeto oo meeshan yaalo oo saddexaad waa bucur guduudka aad ay ilmaha u kobciyaa aad u fiican yahay waxa ku jiro maadooyin badan oo borotiin badan leh oo ilmaha miisaankooda si degdeg ah u kordhiyo waxaad sameynaydaa bucur guduudka miraha ayaad ka bixinaydaa waad fiiqaysaa waad jarjaree waad dhaqaysaa markaa nadiif waxaad dabka saaranaydaa digsi waxaa ku ridanaysaa shabaqa qudaarta lagu uumiteeyo hadaad haysan baastamiirka oo baastada lagu miiro ayaa ku dhex ridanaysaa digsigii oo biyo karkaraayo ku jiro halkaas ayaa bucur guduudkii ku dhex ridanaya waa daboole marka aad dabooshid wuu isku uumitoobaya aad ayuu u jilcayaa sidaas ayuuna ku bislaanayaa waayo biyo ma qaado lagu kariyo asaga aad u jilcan yahay waana furuudyada ama qudaarta aadka u fiican ilmaha in la siiyana aad u wacan waliba kan maasha Allah ilmaha bucbucu ka dhigaa miisaankooda aad buu u kordhiyaa marka insha Allah isku daya in siidaan calooshana aad ugu wanaagsan yahay gooryaanka kale wuu la dagaalamaa ilmaha de gooryaanka qabaan oo kaleeto aad u saacidaya marka hooyo kasto sidaan markay u sameedo ka bacdi waxay soo qaadanaydaa blenderka way ku shubeedaa waxa ku darsan kartaa wax yar oo caano ah ayaa ku dareeda aad ku shiidaysaa hadii kaleeto biyo kulul ayaa ku darsanay waad shiiday marka aad shiidid sidaan camal ayuu ku noqonayaa aadna ma u adkaanayo aadna ma u jilcanaanayo ka bacdi weel qaada leh ayaa ku shubanay waa ku siinaydaa cunugaaga maasha Allah tabaaraka raxmaan waa wax aad u wanaagsan ilmahana aad ugu wanaagsan calool socodsiintooda iyo koriimada calooshooda intaba waxyaabo badan waxa jiraan caruurta aad ugu fiican laakiinse had iyo jeer aan loo sameynin waxa kaleeto aad soo qaadanaydaa xabad moos ah waad fiiqee waad jarjareedaa mooska ma la karinaayo kariimo uu bisil yahay uma baahno blenderka ayaa ku shubanee markaad ku shubtid waxaa ku darsanaydaa biyo caadi ah oo macnaha iska normal ah aan kululeen ayaa ku darsanee markaa ku dirsatid waad shiidaysaa markaad shiidid kaala arag ayuu noqonayaa cunugaaga sidaas ayaad u siinaydaa waa wax aad u fiican dhadhan wanaagsanna leh ilmahan ay aad u jecel yihiin waliba waqtiga hore oo bilaa hore intay ku jiraan maasha Allah ah hooyooyinka waxyaabo badan waxa jira basiid ah ay heli karaan wax badan caruurtooda u tarayo laakiin waxyaabo badan oo waxaa jiro caqabada ah oo ku hortaagan in ay sidaas u sameeyaan sida hooyada inay aqoon daro u geysato inay soo xigelinaynin ayadoo sameysan karta inay ka cabsato istiraado waxaan ama cunugaaga dhib kala kulmaa waxyaabo badan iska jiraan marka sidaas ayaa igu kalifay in aan igu soo gudbiyo in aad u sameeyaan ilmihiina furuudyadan videogan waa kii ugu dambeeyay waxaad soo qaadanaydaa xoogaa strawberry ah waad dhaqee waad soo jarjaraysaa yaryar u jarjareeda
waxaa ku shubanaydaa shabaq yar oo wax lagu umteeyo digsiga dabka saaran biyo ku shubanay waa dhexgelinay hadaad yeesan sida hore aan hore kuugu soo sheegay baastamirka digsiga biyo ku jiro korka ka saar ka bacdi dabool la sii saaro wuu ku umtoobaya wuu ku jilca biyaha waxay ka qayb qaadanayaan hawo fiican inay siiyaan oo kulul waxyaabihi aan meesha ku ridatay kadib wixii markay ku jilcaan oo kaal arag uu ku noqdo 5 daqiiqo bisana ku heenaysaa waa ka soo dejinay waxa kadib markaa ka soo dejisid waxaad sameynaydaa blenderka ayaad ku shubanaydaa biyo iska normal ah oo nadiif ah ayaa ku darsanay sidaas ayaa ugu shiidaysaa ilmahaaga ilmahana saa hore niigu sheegay sanad haday gaaraan sokor ama malab ah ugu dari kartaa si dhadhankii oo ugu wacnaado laakiin haday ka yar yihiin wax sokora iyo wax malaba toona uma baahno sidiisa ayaad ku siinaydaa cunugaaga maasha Allah tabaaraka raxmaan furudyadan ayaa niigu talagalay maadaama in badan aniga 6 maalmood ku dhawaad waan iga maqnaa xoogaa cilad taleefanka iga qabsatay ajligeeda ayaan u maqnaa taleefanka ayaa la iga qaatay ma fahamteen marka insha Allah biidnillah waxaan rajeynayaa in aad fiidiyogan hooyo walbo ay ka heli doonto adinkana aad ka hesheen shimbirtaana saaxiib ay la tahay mar walbo aan fiidiyo duubayo mar dhifaa maahane inta kale meesha aan ku duubayo fiidiyo korkeed ay soo istaagtaa saas u qeerisaa ma fahamteen marka waxayba ila tahay inay soo dhaweynayso intaasna waa iska kaftan hooyo kasta waxaan rajeynayaa in halkaan wax badan ay ka faa'iiday intay ila joogtay anigana maasha Allah tabaaraka raxmaan waxaan bartay hooyooyin aad u badan hooyooyin jecel hooyooyin wax kasta maanta ila wadaago waxyaabo kastana igu dhiirigeliyo in aan soo geliyo waana igu faraxsanahay إلهي هني شرفه هالماميننا لايكتا هدي أول عيلة شوكتي لايك إيسار لايك توحو مكادي بيسو إن شاء الله طبنكن نوسودو وحيرانو غهري إن ما شاء الله تبارك الرحمن وانيقم هاد علينايا قابك قروح ضبضن يقو حيرانتهين يسيدا قروح ضبضن أد إيسو رادسان مركي أنا وحبين يسو قلين والله قبضو وحاني يقو تشير ما شاء الله قلبي وناكسن aad weyn oo ixtiraam badan wax yar hadii aan mashquulo ama si wax ay iga noqdaan jecel markasta inay ila socdaan gabdhaasna inta uga mahad celinaya adinka kalena waxaan leeyahay insha Allah cashiradan ka faa'iideysta cashiro wanaagsan waaye oo hooyo kasta aad u anfici doono siina share gareeya muuqaalkan si hooyooyin badan ay uga faa'iideystaan لايكتنا waxyaabo badan oo waxay caawinaysaa hooyooyin badan ayaa arkaya muuqaalka markii laga la saaro muuqaalkan intaas uu ku eg yahay